لكن هدي قبيل كسياسة دي سلقاها الله معناه هذا ما عن قبيل النعبية انت هرتوين الإسلافها بس الآن بدن باينك مقطع الصومالي ده يا بس الآن بدن باينك مقطع أنا عدان تاجر هي عدان حق هذا شرا ما قرصده حق هذا عدان هاي نقرصده ما هي أو الصومالي دونا ضد كنا الريب المنهير يا قبيلة ستيانو ميه وأنا من سنة هاي إلهي وقبيلة أنا قدك هاي ورسكو أفكارنا وواحد قرن كني بربريي قبيل بان هاي قبيل بان تاجرة سياسة بان تاجرة قفك خلد السياسة دي سو قبيل هذا كشام كتفنا وحبا تاس واحد بال ما قبيل كل اللي نعبيهم معناه ذم سيري صدوا على كلا ساعة هدان كهالله وقادن سياسة دي سو سياسة ضايق الشيء وخلت كذا الشيء تيانا كذا شيء من نبعي هدان يدور كهالله من نبعي هدان كهالله مشرتين من نبعي لكن سياسة الرجل كنا هذا خلدن تتوه على عندي الصومالي هو ماشي كتري يا من دربان تنتهي عراق دلبي يا كوا عيتما هي ماشي كتشروس عيتما أرونينا معايو وعن كهالله والسياسة كي خلدن إلهي بار القرآن كشيء دبنا لو إذا كم إذا ما أمن سندين وحدا يسام آية كعبارة سيديال والعبارة سي كم تايب وقف خلدن أو ظالم هذا ظالم نبذ شوج يا وهل كان كي كم تايب والد السلام وينو قاعد بقولك أو شيء دارس قبل الله بنيه والد السلام لما أنتي نمد السؤال ملك سوتشكتان عوان كي سيدات كاركتان ما أنت وحنا كان لدونا هذا الله ما ميسك نصارن نبركو وغوي بري ما ملك عردن كايلا دسي حوارها كسعودة iyo waxyaalaha ku deyran iyo cadawiyada uu leeyahay waynu ka hadli doonaa hadii alla idmo ma jartan bay cagaha la gali hawiye cagaha la gali waxay cagaha la gali idoor inta ba cagaha la gali doontaa hadii alla idmo ogaadeen cagaha la gali waa qodob kayga labaad waxaan ka hadli doonaa Jubbaland iyo Xasan Sheekh taas waa siyaasad xaqiiqda dhabtaana waynu taabanayna meel badan faray la gali doontaa hadii alla idmo waqooyi bari okay waxaan ka hadli doonaa ogaadenya iyo cagjar baynu ka hadli doonaa hadii alla idmo ya okay waxa ay dhiman waxaan ku bilaabayaa waqooyi bari Soomaali Maxamedi waxa la yiri nin aan yiri dad iska reeb khaladka waxa la yiraahdaa ya saxda waynu kala naqaanaa ilaahayna aqliga wuxuu inoo siiyay inaan wax ku garano waxaan u malaynayaa gardarrada iyo gardara la'aanta inaynu kala garanayno maamulka ayaa sidii uu ku dhismay iyo wixii kalifay iyo wixii ka dhacay iyo dhibkii ka dhacay iyo cidii cadawga u ahayd iyo cidii sababta u ahayd hadda kuma laabanayna taas waa kiis laga soo gudbay in badan baynu ka hadalnay waxaynu ka hadlaynaa hal qodob baan kaga laabanayaa maamulka hal qodob dadka reer SSC ama waqooyi bari waa inay ogaadaan halka qodob ما هذا الكيغو اسكدر معها هذا الكيغو حمانا معها وحكا هذا دونا مامول كاسو dagaalkii dhacay niman idoor la yiraahdo iyagu waxa mabda bay lahaayeen iyagu cudur daarood la yiraahdo ku jiray iyagu way haysan waayeen maamulkii dadkii Soomaaliyeed ee qabiilada kala ahaa ee wax la dhistay way kasban waayeen Soomaali baan ka cararaynaa bay dhaheen dadkiina dil bay ku bilaabeen markii ay dhaheen 30 kun oo ciidan la ascaano noo joogto dadkiina nabadgeliyadiisi ay qaban waayeen taariikhda history lama arag waan ku xukumaa oo dawlad baynu nahay iyo nabadgeliyadeeda mas'uul kama ihi iyo habeen walba afka in la isu duubto fashilkii ku dhacay idoor la weyn isla ogeyn waa takaliftay oo habrihii todobada ay doorinay isku haraan wixii Soomaaliland la oran jiray cirkaanada iyo waa la iyo sheekadii iyo afku xooglannimadii inay soo hadha weyn isla ogeyn dagaalka dhacay oo lagu kala caraf qaaday
dagaalka waxaa galay dad daaroodka kale marka aan ka reebo harti baa galay anigu libanta ninku uu leeyahay nin hoos keliya ma ihi ma jarteen dagaalka waa galay hal ugu kala awood badnaado oo dhulbaanta dee ninkii waxa weeye xawaalo jifalaan ma qodontay ahayd ninkii xiriisa la isku haystay bay ahayd siqiir iyo kibir dagaalka inuu galo waa ku khasbana laakiin ma jarteen dagaalka waa ka qayb qaatay warsan garina waa ka qayb qaatay dashiishlana waa ka qayb qaatay hartiga kale ee Puntland degan oo dhanna waa ka qayb qaatay qabeel aan tagi meesha ma jiro ku dhaqaale ku tagay iyo naf iyo xoog qofkeeyayba وهذا كسيدي يا سلام الله حاسد لا يا أفلام عرفت هذا هو حاسد مي من إن هذاك اللي بنقول له هنا ما ضفره يا دجال كاسو أود أقول بدن هرتي كقيب قادتي دقارة كقيب قادتي ما شرت به دكدي بفرن عن شراف يسبيان ciidan bay keeneen hub iyo gaadiid bay keeneen qisaas bay keeneen intay dooni baa la kaato dagaalka ma jirta waa galay no doubt yeah okay laakiin qodobka aan leeyahay aad u dhageysta dagaalkii ma galeen haa dagaalkaasu dhulbahantana ujeedu dagaalka u galay ma jirteena ujeedu dagaalka u galay hartiga kale ee soo hiiriyeyna dhulbahanta isku mabda ahaayeen oo isku mabda u galeen aan kala saaro hadal run baa lagu cadeeyaa halkan ruway baa lagu cadeeyaa dhulbaanta iyo hartigii kale oo ma jirteen ku jirin dagaalka waxay u galeen in ay xoroobaan dhulbaanta wuxuu u galay inuu xoroobo maamul SSC la yiraahdo uu dhisto hagardaama dambe ayna ku noqonin nin dambe uu wixiisa u daba fadhiisanin ya dhulbaanta dagaalka uma galin inuu Puntland ka mid noqdo dhulbaanta dagaalka uma galin inuu iidoor ka mid noqdo وصادق كي العدية ما dhulbaanta dagaalka wuxuu u galay oo 300 kun u qaxday oo ay u dhimatay 1200 qof oo ay u dhaawacantay 2000 oo qof maamul dhulbaanta uu leeyahay in la yagleelo dhiilka iyagu ay leeyihiin waxa ku jira kaliya inay isticmaalaan oo ayna nin u daba fadhiisanin oo ayna maamul dambe hoos karin inagoo ogeyn dhagartii iyo waxan kada wixii kalifay inay Puntland iyo Somaliland ahaayeen hadalka soo ilaaday ma laba xaaja isdiiday daaroodka kale ee hartiga kale yaana daarood kala badhiin hartiga kale dagaalka wuxuu galay wixii waajibka ahaa ee raka dhaxayn jiray ee heel ahaa ee dhiig ahaa ee dhalasho ahaa buu galay uma uuna gelin dhulbaanta in ama Puntland loo waxeeyo ama Somaliland ee dadka walaalahooda ee la dulmiyay in ay dhiigooda u heeriyaan oo garab u noqdaan bay u galeen waa hartiga kale dhulbaanta tuu galayna soo ma sheegin haa ma jirtaa wuxuu galay baan idin sheegi horeyna waanu sheegay dagaalka oo socda cidii waqtiga ay dhageysan jirtay dib way ugu laaban kartaa fiidiyoyadeedii ba waxaan idin yiri dagaalkaas marka uu dhamaado laba han baa meesha yaala ma jirtaa dhulbaanta way isku dhici doonaan labada han yaala maxaa weeye labada han yaala waxa weeye dhulbaanta wuxuu rabaa inuu maamul dhisto isagu u leeyahay ma jirtaana waxay u dagaalamahayaan oo dhulbaanta ugu daba istaagayaan dagaalka oo u dhinta u leeyihiin Puntland garbaha weyneed inay soo celiyaan labada mabda waa istiideen maalinkaas ha sheegay dad badan oo dhulbaanta kamida
waxay lahaayeen harti baanu nahay maxaa ka galay waxay ma doonaan inaan ka fikirin oo ka talinina waxa markaa jooga kama taliyo markaan arinta ka hadlayay ma aha inaan majartan nabcahay mana aha inaan dhulbaantiya majartan isku dareeyay waxaan arkayay oo ii muuqday waxa iman doona iyo dagaalka waxa loo galay iyo gaardaamadii hore iyo arinta taagan iyo ninna inuu aaminsan yahay dhulbaanta inuu Puntland yahay ninna uu aaminsan yahay SSC inuu yahay taas ay muuqatay dagaalka arintii loo galay majartan u galay waxay ahayd Puntland garbaha weyrado la soo celiyo dhulbaanta tuu galay iyo tuu harti u galay iyo tuu majartan u galay saddexda qaybood oo ma kala saarin ha